bismillaahir rahmaanir rahiim galab wanaagsan halkani waa xogbaahiyaha ciyaaraha barnaamijkeena galabta waxaynu ku soo qaadan doonaa natiijada kulamadii shalay ciyaare ee Euro 2020 iyo Copa America iyo wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe like sar asxaabtaadan la wadaag mahadsanid aynu ku bilaabnay kulamadii shalay ciyaare ee Euro 2020 xulka wadankaasi Scotland ayaa guuldaro laba gool iyo waxba ah waxa ay ka soo gaartay xulka Czech Republic waxaan ciyaartaasi goolkeeda labaad oo ahaa mid aad u qurux badan oo bartamaha goosha uu ka dhaliyay laacibka weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ee Patrick Schick waxaan goolkaasi uu haatan u tartamaya inuu yahay kii ugu wanaagsanaa ee tartanka laga dhaliyo ciyaarta labaad ayaa martay xulalka Poland iyo Slovakia waxaana guusha laba gool ay ku dhacday xulka Slovakia ciyaarta ugu dambeysay xalay ayaa dhaxmartay xulalka Spain iyo Sweden waxaan ciyaarta ay ku soo gabagabowday eber iyo eber waxa maanta jiri doona laba kulan oo la ciyaari doono Euro 2020 waxaana kulanka ugu horeeya uu dhaxmari doona caawa 7 xulalka Hungary iyo Portugal halka kulanka labaadna uu dhaxmari doono saacada marka ay tahay 10 habeenimo xulalka France iyo Germany waan ciyaar aad u xiiso badan sidoo kale xalay waxa halkiis ka sii socday Copa America waxaana la ciyaaray laba kulan xulka wadanka Argentina ayaa barbaro gool ah la dhaafi waayay xulka wadankaasi Chile waxaana Blueson aad u qurux badnaa dhaliyay kabtanka xulkaasi Leo Messi ciyaarta labaad ayaa dhaxmartay xulalka Paraguay iyo Bolivia waxaana 3 gool ay guush ku raacday xulkaasi Paraguay markayna aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda goolhayaha kooxda PSG Keylor Navas ayaa bartilmaameed u noqday naadiga Manchester United sida ay daabacday marka kooxda Red Devils ayaa ka shaqeynaysa sidii 34 jirka reer Costa Rica ay uga soo dejin lahayd masraxa riyada kooxda United ayaa wali ku wareersan mustaqbalka labadeeda goolhaye ee David De Gea iyo Dean Henderson waxaana labadaba la xiriiriyay in ay ka bixi karaan kooxda suuqa xil ciyaareedkan goolhayaha khibradda leh ee Navas ayaa haatan waqtigiisa kooxda caasimada France ee PSG oo u muuqda mid soo dhamaaday markii kooxda PSG ay si bilaash ah gacanta ugu dhigtay goolhayaha xulka Talyaaniga iyo kooxda AC Milan Gianluigi Donnarumma kadib isbuucyo la isla dhaxmarayay warar xan ah oo tilmaamaya in xidiga garabka uga ciyaara Manchester City ee Raheem Sterling uu ka hayamayo garoonka Etihad ayaa maanta wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in xiriirka labada dhinac uu soo hagaagayo kooxda City ayaa haatan u furan in heshiis cusub ay ka saxiixato xidigeeda reer England marka uu soo dhameysto waajibaadka wadankiisa uu ku metelay Euro 2020 Sterling ayaa guul ku hogaamiyay xulkiisa England kulankoodii furitaanka Euro 2020 oo ay la ciyaareen xulka Croatia 26 jirkan ayaa maraya xilligii ugu wacnaa waayihiisa kubadda cagta waxaana dad badani ay shaki ka muujiyeen in wali uu energy ku dambeeyo maadaama asaga oo da'yar uu heerka sare ee Premier League ku soo biiray waxa la sheegayaa in xidigii hore ee Liverpool iyo tababare Pep Guardiola uu khilaaf soo kala dhaxgalay balse arintaasi ayaa haatan u muuqata mid meesha laga saaray dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa loo soo bandhigay Janis ay kula saxiixan karto weeraryahanka kooxda Milan iyo xulka Portugal Rafael Leao sida ay daawacday jariirada Red Spain ee Defense Central xidiga reer Portugal ayaa ka codsaday wakiilkiisa Jorge Mendes inuu u raadiyo naadi cusub markii uu la qabsan waayay horyaalka Talyaaniga Leao ayaa Milan kaga soo biiray kooxda reference ee Lille 2019 waxaana xidigani uu ku guuldareystay inuu joogtay bandhiga tayadiisa ciyaareed 22 jirkan ayaa 40 kulan oo tartamada dhan uu garoonka u galay Rossoneri kaliya dhaliyay 7 gool isagoo caawiyay 6 kale waxaana midaasi ay sabab u noqotay in buus joogto ah uu ka waayo San Siro dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay ka fikirayso dhaqaaqida daafaca bidix ee kooxda Ajax iyo xulka Argentina Nicolas Tagliafico sida ay qortay Mundo Deportivo kooxda Barca ayaa rabtay xidigan reer Argentina haddii ay ku guuldareystaan saxiixa daafaca reer Spain iyo kooxda Valencia Jose Gaya kooxda Barca in muddo ah baadikoob ugu jirta helida bedelka daafacooda Jordi Alba waxaan xidigan kooxda Ajax uu noqday dooqooda labaad Tagliafico ayaa ka mid noqday kooxda reer Holland sanadkii 2018 isaga oo kaga soo biiray kooxda reer Argentina ee Independiente 28 jirkan ayaa ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan kooxda Ajax
waxa uu nasaftay tan iyo markii naadiga uu ka mid noqday 139 kulan isagoo dhaliyay 13 gool caawiyana ka ahaa 19 kale. Barcelona kuma ahan kali loolanka lagu jiro saxiixiisa oo waxaa horey loola xiriiriyay kooxaha reer England ee Arsenal iyo Chelsea iyo sidoo kale kooxda reer Spain ee Atletico Madrid. dhinaca kale kooxaha Barcelona iyo Manchester City ayaa lagu soo waramayaa in ay macquul tahay in ay isku bedeshaan 4 ciyaartoy xil ciyaareedkan. kooxda heysata horyaalka Premier League ee Sky Blue ayaa dhigeeda Barcelona u gudbisay xiisaha labada xidig ee Ousmane Dembele iyo Sergio Roberto, halka kooxda Camp Nou ka dheesha ay dhigeeda ka doonayso labada ciyaaryahan ee reer Portugal Bernardo Silva iyo Joao Cancelo. naadiga Barcelona ayaa u muuqata mid faa'iidada ugu badan ka heli karta heshiiskan haddii lagu guuleysto. kooxda reer Spain ayaa ku guuldareysatay in ay heshiis cusub ay la gaarto xidigeeda reer France ee Dembele, waxaana culeys ka degay naadiga Catalonia uu noqon doona haddii uu ka hayaam xagaagan maadaama mushaar badan uu ka helo kooxda. dhanka City tababaraheeda Guardiola ayaa jecel xidiga reer Spain ee Roberto, waxa uuna wax weyn ka bedeli karaa qaabka kooxda ay haatan u ciyaarto. ugu dambeyntiina sida ay qortay La Razón, kooxda heysata horyaalka Yurub ee Chelsea ayaa soo celisay xiisaha ay u qabtay daafaca bidix ee kooxda Villarreal Alfonso Pedraza xil ciyaareedkan. kooxda Chelsea ayaa dagaal la geli doonta dhigeeda Talyaaniga ee Napoli oo doonaysa saxiixa laacibkani. waxaa lagu soo waramayaa in naadiga reer Talyaani ay xiiso ba'an u qabto daafaca bidix, waxaana horumarkiisa muddo sanad ka badan la socday maamulaha kooxda Napoli Cristiano Giuntoli. heshiiska Pedraza uu kula jiro Villarreal ayaa ku eg 2025, waxaana ku jira heshiiskiisa qodob sheegaya in kooxda rabta saxiixiisa ay waajib ku tahay in ay bixiso 35 milyan oo euro. kooxda Chelsea ayaa haatan lagu waramayaa in ay hoggaanka u hayso helista adeega laacibkani. barnaamijkeeni galaftana waa inaga inta